kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka qodobada xiisaha leh aad ku daawo doontaan haddii eebweynaha agtiisa laga helana waxaa ka mid ah Mareykanka iyo Ruushka ayaa lagu wadaa inay Sacuudiga ka bilaawaan wada hadallo ku saabsan dagaalka Ukraine Hamas oo shaacisay dilka mid ka mid ah hogaamiyaasheeda qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaad ku daawo doontaan haddii eebweynaha laga helo iyo qodobadii kale ee nagu soo kordho markaasi balse faafahinta qodobadaas intaan u gudgelin haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo boqoto fadlan saar YouTube-keena Barkulan Media subscribe oo gambalaalka furo muuqaalkana like saar sidoo kalena sii share gareey oo gaarsii saaxiibada kugu weeliya bartaada YouTube-ka hagaag haddii aynu ku bilowno Hamas ayaa shaacisay dilka mid ka mid ah hogaamiyaasheeda Hamas ayaa bayaan soo saartay ku shaacisay dilka mid ka mid ah hogaamiyaasheeda caanka oo la yiraahdo Mahmoud Ibrahim Shahin oo loo yaqaano Abu Albara bayaankan ayaa lagu macneeyay in Shahin la dilay Isniintii 17 February sanadka 2025 intii lagu gudo jiray weerar diyaaradaha Israa'iil ay ka fuliyeen magaalada Sidon ee koonfurta Lubnaan wararku waxay intaasi ku sii darayaan in Shahin uu qabtay dhowr jagooyin oo jihaad ah ciidamada Israa'iil ayaa bayaan ay soo saareen ku shaaciyeen inay dileen sargaal ka tirsan ururka Hamas ee ku sugan magaalada Sidon sidoo kalena ilo kale oo dhanka amniga Lubnaan ay ka tirsan ayaa xaqiijiyay in dilka sargaalkan ka tirsan ciidamada Israa'iil waxay sheegtay in hogaamiyaha la beegsaday uu mas'uul ka yahay howlgallada dhaqdhaqaaqa ee Lubnaan wakaalada wararka ee Faransiiska ayaa soo xigatay ilo wareed Lubnaan ah oo la doorbiday in magaceeda aan la sheegin iyadoo xaqiijisay dilka Maxamed Shahin oo sargaal ka tirsan militariga dhaqdhaqaaqa Hamas oo lagu dilay duulaanka Israa'iil ee Sidon afhayeenka ciidamada Israa'iil warbaahinta Carabta ayaa xaqiijiyay in bartilmaameedkani howlgalka uu ahaa taliyaha hoggaanka howlgallada Hamas ee Lubnaan warbaahinta Israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in weerarka ay si wadajir ah u fuliyeen ciidamada Israa'iil iyo Shin Bet oo ay hogaaminayeen hoggaanka warfaafinta iyo sirdoonka taliska waqooyiga duqeynka dhanka cirka oo ay fuliyeen ciidamada Israa'iil ayaa lala beegsaday gaari mariyay magaalada Sidon ee koonfurta Lubnaan haween ka hor waqtiga la qabtay fulinta heshiiska xabajoojinta ee u dhaxeeya Xisbullah iyo Israa'iil wakaalada wararka qaranka Lubnaan ayaa ku warantay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn inay beegsatay baabuur ku socdaalay aagga badda waqooyi ee laga galo Sidon kuna sii jeeday Beirut madaxweynaha Lubnaan ayaa muujinaya cabsida uu ku qabo dhameystirka ka bixitaanka ciidamada Israa'iil iyadoo aan la gaarin talaalada 18 February wakaalada wararka qaranka ayaa ku dhawaaqday in wasiirka difaaca uu la kulmay agaasimaha sirdoonka ciidanka waxaana intaasi socday kulanka xaaladda amniga iyo horumarka koonfurta looga hadlay iyadoo la eegayo si socoshada xadgudubyada iyo weerarada Israa'iil wargeyska The Time of Israel ayaa soo xiganaya sargaal Israa'iiliin ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay sii joogi doonaan 5 goobood oo istiraatiiji ah oo ku yaala Lubnaan inkastoo la qorsheenayo inay isaga baxaan waagaaga daawadayaal wili waxa daawaneysaan qodobadii caalamka balse haddii aynu eegno Mareykanka iyo Ruushka ayaa lagu wadaa in Sacuudiga ay ka bilaabaan wada hadallo ku saabsan dagaalka ka dhanka Ukraine wufuud sare oo ka kala socota Mareykanka iyo Ruushka ayaa talaadada ku kulmi doona Sacuudi Carabiya si ay uga wada hadlaan joogitaanka dagaalka Ukraine wasiirka arrimaha dibadda Ruushka iyo la taliyaha siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa Isniintii gaaray caasimadda Riyadh ee dalka Sacuudi Carabiya inta uu socdo wada hadalkani waxa uu Mareykanka matalihi doonaa xogayaha arrimaha dibadda Marco Rubio la taliyaha amniga ee qaranka iyo sidoo kale ergeyga gaarka ah ee bariga dhexe kulankan ayaa imaanaya kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald J Trump uu toddobaadkii hore qadka telefoonka ula yeeshay dhigiisa Vladimir Putin iyo madaxweynaha Ukraine Zelensky si loo soo afjaro dagaalka 3 sano socday kaasi oo u dhaxeeya Ukraine iyo Ruushka laakiin Ukraine kama soo qaybgelin wada hadallada maadaama aan lagu marti qaadan Zelensky waxa uu carabka ku adkeeyay in Ukraine aysan marba aqbali doonin heshiis kasta oo laga gaaro iyadoo Kiev aysan ka soo qaybgelin wada hadalladani Zelensky ayaa la kulmay doona dhigiisa dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan kulankan waxa uu ka dhici doonaa caasimadda dalkaasi Turkiga Ankara iyadoo ay ka wada hadli doonaan xiriirka labada dal xaaladihii ugu dambeeyay Ukraine iyo arrimo kale oo ku saabsan gobolka iyo caalamka hogaamiyaasha dhowr wadan oo Yurub ayaa Isniintii isugu soo baxay magaalada Paris ee caasimadda dalkaasi Faransiiska kadib
casuumaad ay ka heleen madaxweynaha dalkaasi Faransiiska Emmanuel Macron si ay ugu wada hadlaan xiriirka xaaladda Ukraine, wadaxaajood nabadeed oo suurtagal ah iyo amniga guud ee wadamada Yurub. xiriirka Mareykanka iyo Yurub ayaa xumaaday bishan kadib markii Trump uu bilaabay wadahadallo toos ah oo la yeelanayo Putin oo ku saabsan wadahadallada nabadeed ee Ukraine iyadoo aanan wax lug ah ku yeelanin wadamada reer Yurub. shirkii amniga Munchen dhamaadka toddobaadkan ergeyga gaarka ah ee Trump u qaabilsan Ruushka Ukraine ayaa xaqiijiyay in dadka reer Yurub aanan lagu casuumin wadahadallada nabadeed ee Mareykanka iyo Ruushka ee loo qorsheynayo in ay ka dhaqan gasho dalkaasi Ukraine. وهجاج داود يال أنت سيان كسو كوبن قد بدي يقوم هم سنة عالم قبل سادية نلسو قارتي قد بدر دمات كوحن مر لبعض يوم مرسد حتى كعصنينا هنا دي يوتيوب كنا بركول ميديا سبسكرايب صارتوا جنبرال كفرت سيدو كان المقال كان دي دمات كسو قارتي وحن مر لبعض كعصنينا لايك صارتوا سيدو كلنا شير جرسوسي صاحب بدن ومقال كان يوجارو